munaasabadda xiritaanka tartanka qur-aanka kariimka ee gobolka Gedo ayaa ka dhacday masjidka qadiim ee magaalada Beled Xawo iyadoo ay ka qayb galeen inta badan degmooyinka gobolka. Ardaydii kaalmaha hore gashay ayaa la guddoonsiiyay abaalmarino kala duwan waxaana sanadkan qayb ka ahaa abaalmarinada isbitaalka Gurmud ee degmada Beled Xawo. Sharmaake Maxamed Faarax oo matalaya degmada Luqganaani ayaa ku guuleystay kaalinta koowaad ee 30 juz. Sidoo kale Mascuud Cabdiqaadir Xasan oo ka socday isla degmada Luqganaani ayaa ku guuleystay kaalinta koowaad ee 15 juz. dhinaca kale Cabdifataax Cabdullaahi Catiiqi oo ka socday degmada Baardheere ayaa kaalinta koowaad ka galay 5 juz. tartanka waxaa soo qaban qaabisay hay'adda waxbarashada iyo horumarinta Ar-Raxma waxaana munaasabadda xiritaanka kasoo qayb galay guddiga garsoorka, guddiga masjidka qadiim, macallimiin, arday, waalidiin, ganacsato iyo marti sharaf kale. munaasabadda ayaa si rasmi ah loogu daahfuray aayado ka mid ah qur-aanka kariimka waxaana lagu soo xiray jawi farxad iyo mahadcelin leh iyadoo duco iyo bogaadin loo jeediyay dhammaan dadkii ka gacan geystay tartanka. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. أمبلي أيام مدرينا أرضا برنامج كان كسو قيب قلي وقيبها برايك كالدوان سدح دي فرعبا أرضي خسارة مجر وودا قوليستان وفي قرآن إلهي أخريي خسارة مجرته مرول بواقول لكن وحيابها الله سمينا يوادي رجلين أوكالية إن أرضي قال دي رجليو إن لا ترتمو إني معنى لذا إن دي رجليو إن والدك يا معلنك مسكح دودا كور لو قادو لا دي رجليو dadka dhaqaalaha bixinaya oo dadaalay in la dhiirigeliyo weeye cid khasaartay marnaba ma jirto. waxaan leenahay marka hanii'an lakum ayuha almutasaabiquun dadkii tartamay ardadii tartamtay waxaan leenahay hambalyaan u diraynaa meel ay joogaanba kuwa nala jooga iyo kuwa soo dirayba waxaan leenahay ilaahay ajri iyo xasanaad badan idinka siiyo qur-aankana allah idinku sugo dhammaan intii ka shaqaysay oo guddiyada kala duwan guddiga tartankan qabanayo oo arrintaani ka soo shaqeeyay ay hormuud ka yihiin musaabaqada gobolka Gedo oo markii saddexaad noo qabsoomaysa iyagana ajri xasanaad allah ka siiyo waxaan leeyahay marka jazaakumullahu khayran kitaabka ilaahay barashadiisa iyo ku dhaqankiisa iyo maamuuskiisa iyaynan u kala harin haddaanu nahay Soomaaliya gaar ahaan reer Gedo gaar ahaan degmada Beled Xawo sharaf buu inoo yahay halkaani maxaan ku raadaay maanta dadka ballaaran ay ka daawanayaan ama uga xiran yihiin caalamka meelaha kala duwan jazaakumullahu khayran. musaabaqada kulley waa 3 farci ahayd kulley waa laga hadli doonaa kulligood ilmaha imtixaanka ka qaadnay waa mumtaaziin ilaahay ha barakeeyo maxaa yeelay idinka naftinkiin imtixaanka waana la qaadaysiin waad arkayseen ilmo oo xufaad ah way xul ee tasfiyaad ay soo mareen fila insha Allah taala ilmaha ilmo guuleystay way waana farax qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu in lagu farxo way khitaamadii joogno khitaamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wax lagu tartam kalaamka rabbi subhanahu wa taala wax ka wanaagsan ma laha ilmaha mutasaabiqiinta ah oo tartaman waan u mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad laakiin waxaan codsanaynaa in xoog la geliyo la xoojiyo sida sheekha ka dhawaajiyay bal lagu daro tafsiirka quraanka kariimka lagu daro imtixaamaadka la qaadi doono in tafsiirkana lagu daro aad ay u wanaagsan tahay maxaa yeelay ilmo yar yar aad arkaysiin 30 juz ku tartamaayo oo xufaad ah ilaahay subhanahu wa ta'ala maxad iska leh taasna in lagu shukri waay tartankan qabanay musaabaqad Gedo Qur'aan Kariim tartanka Qur'aan Kariimka gobolka Gedo ما شاء الله وطرتنا هذا أرد هذا في عن
dhalinyarta tartamaysa dhammaantood way wada guulaysteen kulligood waa mumtaaz wax hooseeya male mid qofka qur-aanka laga joojiyey ma lahayd qof kastaba su-aalihii la weydiiyey si fiican buu qaatay si fiican buu uga jawaabay laakiin de waa in yar waa lagu kala horeynaya xagga ciddaha lagu kala horeynaya marka waxaan leeyahay insha allah hore u sii socda dadaalkiina sii xoojiya oo sii suga qur-aanka dhawaqana sii qurxiya laxniga carabtan insha allah aan iska wada raanino marka xifdigeenna iyo dhawaqeenna iyo addaheenna iyo tajwiidkeenna insha allah aan sii xoojino taas waa si insha allah tartanka kalena insha allah hore soo codsa caasimadda tartanka ay u geli doontaan isku sii diyaariya insha allah gobolka idinkoo matalaya inaad insha allah aad timaadaan caasimadda ood u tartantaan tartanka waaweyn ilaahayna waxaan baryayna insha allah tartankaasi tartan barakaysan oo noqdo si guudna bulshada waxaan kula talin lahaa qur-aankaas aan qiimeyno haddaan qiimeyno qur-aanka baraka iyo amni iyo nabadgelyaan helaynaa caafimaad baan helaynaa hadduu qur-aanku inagu yaraadana khilaafka iyo mashaakilka ay nagu badnaanaya marka qur-aankaas iyo dhalinyarta haddaan jeclaysino hadafka musaabaqada loo qabanay waxaa weeye waa dhiirigelin dhalinyartaas hooso haddii aan dhiirigelin weyn dhalinyartaasi shayaadiinta dhiirigelinayo oo kubad iyo sallax iyo meel balaayo foodxiir bay wada noqonaya meel xun bay ka dhacayaan marka hadafka loo samay musaabaqada waa dhiirigelin iyo dhalinyarta in lagu xiro kalaam rabbilcaalamiin quluubtooda jeclaysiiyo geesiyaasha la rabo inay yihiin iyo xidigaha la rabo in kuwa yihiin xidigaha qur-aanka aan ahayn kuwa xidigaha kubadda iyo xidigaha kale lama rabo kuwa la rabo waxa weeye waa xidigaha qur-aanka marka insha allah aan u tartano dhammaanteen cid qur-aankaas qof weyn qof yari cid ka maarmaya male waxa kale dhan fasax waa laga qaataa waxa kale haddii uu kaa tago qiimo male laakiin kalaamu rabbilcaalamiin marna kama maarmaysa waa sida jasadku hadduuna ruux lahayn qiimo ma yeelanayaan insaanku markaa haddii qur-aan laga waayo waxaa weeye waa jasad bilaa ruux marka qiimo waxaan ku leenahay waa kalaamu rabbilcaalamiin iyo diinta marka waxaan kula dardaarmaynaa bulshada insha allah qur-aankaasi hala qiimeeyo isaga waqti badan hala geliyo haddaad isaga waqti badan gelisaan ilmahaas wuxuu noqonaya ilmo baari ah ilmo wanaagsan mustaqbalka adduunya akharaba meel fiican buu ku tegi mustaqbalka xaqiiqigu waa kalaamu rabbilcaalamiin waxaan kale waa iska wuhaahin waxyaalahan kale ee luqadda jalaatada iyo noocyadan kale he wax meel weyn lagu gaaraya maaha marka aan kalaamu rabbilcaalamiin aan markastaba dhalinyarta ku dhiirgelino si insha allah culumta kale ee qur-aanka xidhiir kalena ugu fudaato kalaamu rabbilcaalamiin meel fiican lagu gaaraan markaa si guud tartankaas alxamdulillah si fiican buu nagu dhacay ilaahay baana ka baryana alcadl walinsaaf iyo xakaman caadila nooga dhigo insha allah waxaan rajaynaa dhammaantiin inaad ku farxi doontaan natiijada soo baxaysa culimada anuu afkooda ku hadlaya dhammaantiin wixii khalada ee naga dhaca insha allah iska faano caafiya masaakiin baan nahay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa insha allah inuu tartankaasi noqdo mid joogto ah un marna goyn insha allah uu socdo maanta hadduu sanadkii saddexaad marayo inuu insha allah jiilka jiil uu sii socdo insha allah unu marna naga istaagin ayaa ilaah baryayna maadaama waxaa weye waa ubax waa iftiin noo soo baxa ilahay iftiinka ilahay nagama damiyo sanad kasta ilaah noo joogteeyo caruurtan ilaahay aflix iyo adaab ilaah noo siiyo fahamka iyo fiiraddan ilaah u furo walaalayaalow waa la garanaya khayrkiis intaasaa galabta cibrahim kugu filan ummadda halkaa leeg oo halkaa fadhida oo wax kala celinaya wax kala duwaya la arag waxay ku fadhiyaan idaabta iyo wanaagga iyo xurmada kitaabka ilaahay wey ilaahay waxaan ka baryayaa dadkii ardada ahaa oo qur-aanka akhriya ilahay carabkooda xifdiyo waalidiintoodna ilaahay koran ka dhigo macallimiintoodana alla xifdiyo macallimiinta jalsada noo fadhida oo garsoorayaashan ilaahay dadkii soo barbaariyey iyo waalidiintooda ilaahay ha u dambi dhaafo qof walbow intaad qur-aanka ilaahay ka geysato ama intaad ilmahaaga iyo diinta uga geysato waqti waxaa jiri jiray la dhihi jiray hebella waxaan u dirsanayaa wadaadka iska noqdo kuwa kalena maardi barofesoorra iyo waxaan ka dhigaya dictoorra waa laga soo tegey waxaas ilaahay nabiga sal alla slam man yuridu llahu bihi khayr ninka ilaahay khayr la doono yufiqu fi diin diinta ilaahay fahamsiinaya waxaan ogaanay ilmihii iskuullada iyo jaamacadaha nin professora maadaama hadlahay ninkaasaan waxa ka arkay dadka waxaan baranida ka hadlay wallaahi baan wuxuu yidhi wiilka yarka oo hadda qur-aanka aqriya iga qayan badan buu yidhi waa inaad ogaataa haddii caawa dhimato lagu duubayo waxa qofka qur-aanka kaa badiyaa lagaa horduuya laga hormarinaya taasna waa ilaahay qur-aankiisa waxaad ogaataan arday walbo oo halkan soo fadhiistay oo kalaamka ilaahay subxaana wa tacaala ku tartamay waa arday guulaystay sababto ah wuxuu u guulaystay 2 jeer buu u guulaystay mar degmadii uu ka yimid buu ka soo baxay marna gobolkii buu u tartamay
marna waxaa weeye mujtamacaan dham intuu hor fariisto oo kalaamka ilaahay akhriyay marka waxaan leeyahay ardayda dhammaantiin waad guulaysateen ilaahay subxaanahu watacaala ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin ha siiyo waalidiintii soo barbaariyey iyo macallimiintii soo barbaariyey safarada dhaadheer la soo galan ilaahay subxaanahu watacaala ajir iyo xasanaad aan la soo koobi karin ha siiyo waxaan rabaa halkan wadaadkii Mandheera nooga yimid fariin yar buu noo diray haddaan nahay reer Beled Xaawo in abaabulka annaga xoogaa ma aragtay oo sida loo baahnaa uusan ahayn xaqiiqatan marka la fiiriyo Mandheera magaalada dariska annaga nala ah tartan baa ka dhaca quraanka kariimka ah tartankaas waxaa looga imaadaa koontiga oo dhan iyo maxaan ku yiraahdaa ilaa Nairobi baa looga imaadaa culimadii waaweyneed baa ka soo qayb gasho siyaasiyiintii baa ka soo qayb galo waad aragteen sida loo dhiirigelinayo ardaydaas annagana dhiirigelintaanada aad bay u yartay hadda wajiyada horteeda fadhiyo waxay u badan yihiin jameecada masaajidka iyo ardaydii bulshadii magaalada qaybaheeda kala gedisnaa oo dhan way ka maqan yihiin saan oo kale xalfadan oo kale markii loo fadhiyo waxaa la rabaa dadku in la dhiirigeliyo ardayda la dhiirigeliyo ganacsiyada la soo xiro bulshadii dadka indhaha u ahaa ee soo fariistaan meeshaan taas marka reer Beled Xaawo haddaan nahay waa inaan qaadanno wixii sanadkan ka dambeeyana sidaan si ka qurux badan oo ka abaabulan inaan isku soo abaabulno aad bay u fiican tahay waan gaari doonaa heer uu hal qof oo muxsin ah uu musaabaqada uu macnaha taabageliyo Allahna gaarsiiyo laakiin inta ka horeysa inaan sameynaa fiican 20 qof ama 30 qof oo ganacsatada degmada ah ama bulshada degmada ku nooleed ah inay contribution sameeyaan oo sidaan si ka xoog badan ma aragtay looga qayb qaato taasna waa rajaynayaa sheekhan waxaan leenahay insha Allah ta'ala waan qaadanay sanadka soo socda haduu ilaahay ma sidaan si ka xoog badan baa noogala soo qayb gali doontaan ardayda iyo dhammaan ka soo qaybgalayaashan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadhigiinaan ajri xasanaad aan la soo koobin karin Allah inga siiyo tartankani waa tartankii guud ee kama dambaysta ahaa dadka ku cusub tartankan waxaan fahansiinaynaa degmooyinka waxay u soo tartamaan tartamo hoose oo isreereebyo ay soo galaan degmo kasta waxaa ka soo baxo 3 arday saddexdaasi arday ee degmadaasi ka soo baxdo ayaa waxaa la isugu keenaa halkani oo kaga qayb galo tartankii guud ee quraanka kariimka ee gobolka Gedo sidaa darteeda marka saddexda faracna waa lagu tartamaayo 5 juz 15 juz iyo 30 juz intaba ilaahay mahadiisa waxaa noo qabsantay qaybtii ama dowrkii saddexaad ee tartankan aynu qabanayno waxaa horeeyay dowrkii koowaad iyo dowrkii labaad kanna waa kii saddexaad intaa kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadiisa waxaan u mahad celinaynaa juhdigani dad baa ka dambeeya iskama imaanin waxaad dareemaysaan in degmooyin kala duwan macallimiin laga keenay in degmooyin kala duwan ardadoodii macallimiintooda laga keenay in deegaan loo sameynay in maxaa la yidhahdaa guddiga garsoorka meelo kala duwan laga keenay in maxaa la yidhahdaa abaalmarimaha ardayda ay u baahan yihiin in la sameynay intaasoo dhanba iskama imaanayso waxa ay ku imaadeen dadaal iyo fikir dheeraad ayay ku imaadeen waxaan u mahad celinaynaa halkani dadka kala duwan ee barnaamijkaasi ka qayb qaatay ee ugu horeeyo abaabulka iyo taabagelinta xoogga leh oo uu ka geystay Dr. Cumar Warsame khayr Allah subhanahu wa ta'ala ha siiyo waxaan sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dadka arintaasi sida joogtada uga qayb qaato barnaamijkani miisaaniyad culus ay u baahan yahay sanadkii markuu qabsoomayo aad ay u mahadsan dadkii qayb qaatay waxaan rabaa inaan sheego dhowr qodob oo kale markii laga soo gudbo mahad celintaasi dadkaas waa loo duceyn doonaa hadduu Ilaah maydin ardayda 30 juz ee ku guuleysta ardayga 30 juz ku guuleysta sanadkan hadduu Ilaah maydin waxa la yidhi wuxuu soo laaban karaa inuu mar kale tartamo 2 sano kadib waxaan bannaanayn arday sanadkaa ku guulaystay inuu isla sanadkii dambe haddana soo laabto 2 sano kadib ayuu ardayga ku soo laaban karaa inuu mar kale u tartamo 30 juz laakiin waxaa laga soo reebay haddii ardaygii sanadkani ku guulaystay 30 juz uu rabo inuu sanadka dambe ka qayb galo waxaa u bannaan inuu kaga qayb galo inuu riwaayad kale ku tartamayo haddii riwaayad hadda inuu ku tartamayno riwaayad xabs ay tahay lama ogolo waxaa loo ogol yahay inuu 2 sano kadib uu isla riwaayadda xabs ku soo tartamo laakiin sanadka dambe hadduu rabo isla ardaygaasi inuu mar kale 30 juz ku tartamo waxaa loo ogol yahay inuu riwaayad kale waxa weeyaan uu ku tartamo oo aan ahayn isla riwaayaddaas
qodobka kale waxa weeyaan ardayda waxay isugu jiraan arday dugsiyo dhigato inta badan tartamada waxaa loo qabtaa ardayda dugsiyada dhigato ee si toosa dugsiga uga imaado waxaan sanadka soo kordhayna hadduu ilaamay dhihin in ardayda aanan wax dugsiya aanan ku tacalluqin oo aan dugsi toosa u dhiganin ee buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay ilan farac kastaba shuruuduu leeyahay da' buu leeyahay waxa weeyaan heer buu leeyahay la fiiriyo ee shuruudaha buuxiyo in ardaydaasi iyagana sidoo kaleeta si gooni ah loo diiwaangelin doono ardaydaasi iyagana loo furi doono inay tartanka ka qayb galaan hadduu ilaahay uusan may dhihin idan marka waxaa loo baahan yahay marka waxa weeyaan in aan fursaddani aynu haysanno ee tartanka qur-aanka kariimka ee gobolka Gedo in sanadka soo socda insha allahu tacaala inuu intaan ka cuslaan badnaan doono hadiyadaha iyo waxa aan bixin doonana uu ka qiimo badnaan doono biidni illahi tacaala dhammaan ardayda ka soo qayb gashay waa u mahad celinayaan iloobin iyagana dadaalkay sameyn waa mahadsan yihiin guddiga mar kale mahadsan yihiin cid kasta oo qaban qaabisay waa mahadsan yihiin masaajidkan qadiim oo waxa weeyaan nagala qayb qaatay iyagana soo kaleeto fursaddaana siiyey iyo jamaacadiisa waa mahadsan yihiin meediyaha oo ustaad cabdisamad oo waxa weeyaan nagala jooga asagana soo kaleeto aad ayuu u mahadsan yahay ilaahi subxaana wa tacaala ha barakeeyo wax kasta oo halkani ka baxo cirifka dambe caalamka waxaa gaarsiin kara waa aaladaas aad ayuu u mahadsan yahay dhammaantiin oo mahadsantihiin walaalihii ka soo qayb qaatay oo juhdigan bixiyey dhaqaalo iyo maskax iyo maalba ku bixiyey ani xoog iyo xoolo iyo xirfad ay leeyihiin aqoon intaba ku saacideeyey ilaahay maalkoodana ha badiyo awlaaddoodana allah ha badiyo allahna u barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa ninka meel fog jiro oo ka qayb qaadanayo gobolka Gedo musaabaqadiisa ama Soomaaliya gudaheeda ka qayb qaadanayo ilaahay inuu xifdiyo maalkiisa inuu ilaahay u xifdiyo awlaadiisa allah u xifdiyo marka waxaan leenahay dhammaantood walaalahaas ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa sacaada fi dunya wal aakhira inuu siiyo sacaada fi dunya wal aakhira inuu siiyo inuu ilaahay ayaga xifdiyo ahaalidooda xifdiyo maalkooda xifdiyo awlaadooda xifdiyo ilaahay maalkoodana u badiyo cimrigoodana la barakeeyo cibaadadoodana ilaahay wanaajiyo ilaahu kalaamkaagii bay taabageliyeen sidii loo tartami lahaa loo xifdin lahaa loo dhowri lahaa ilaahu hawlahooda u dhow ilaahu danahooda u dhow ilaahu hawlahooda u hagaaji ilaahu hawlahooda u hagaaji ilaahu arrimahooda u tawalli ilaahu arrimahooda u tawalli ilaahu qurbay joogaana kurbada ka qaad ilaahu qurbay u badan yihiin ilaahu kurbada ka qaad ilaahu kurbada ka fay ilaahu awlaada u islaaxi ilaahu awlaada u islaaxi ilaahu dembigooda dhaaf ilaahu dembigooda dhaaf ilaahu masaalixdooda ka shaqee ilaahu masaalixdooda u sahal ilaahu masaalixdooda u sahal ilaahu masaalixdooda u sahal ilaahu shar oo dhan ka qabo ilaahu ganacsiyadooda u barakee ilaahu ganacsiyadooda u barakee ilaahu ganacsiyadooda u barakee cabdisamed cabdullaahi maxamed musaabaqatu Gedo lilqur'aani alkariim balad xaw